السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada youtube-ka axmed caysane. waa shiraantii imtixaanaha ee accountiga ahaa, gaar ahaan jabtarkii saddexaad iyo cashirkii lixaad. waxaa sixitaan u yarba ahnaa cashirkii u dambeeyey sublaiskii. markan hore haddii dib aan ku xasuusiyo, waxaan update garaynaynay ama adjustingkii aan ku sameynaynay akoonadan afarta ah. akoonkan sublaiska ah, sidoo kale equipmentiga, prepaid insurancega iyo unearned service revenue. afarta akoon ayaan update ku sameynaynay. afartan akooni marka iyaga un baa noqonayay labadii qaybood ee adjust intrigaan soo qaybinay. sublieskan marka wuxuu inagu joogay trial balancega in kan aan adjustiga lagu sameynin 2500, laakiin 2500 ma aha 2500 oo si sax ah u taala, laakiin qayb ka mid ah ayaan isticmaalay oo warqadii sublieska ka mid ahaa. qaybtaas u baahan in expenseska la raaciyo, waxa balancega soo harayna la ogaado. taa horaan soo sharaxnay. marka waxaa ka tagnay oo muuqaalku dheeraaday waxaa la yidhaahdo balancegii soo hadhay October 5 2500 buu ahaa, oo waa kan 2500 subliesku taagnaa. then waxaa dhacay marka October 31 markii la eegay sublieskii kaba soo qadina warqad ahayeen. warqadihii waxaa ka yaala 2500 waxaa ka yaala baa la yidhi 2500 waxaa ka baxay baa layidhi. marka 1500 ayaa ka baxay. 1500 ka baxday marka waa tan creditka ku duwan gashan oo October 31 intan waa adjustment wey, waxaan soo gaabiyey. waa 1500 baa layidhi. markaasi waa sublieskii xaggani. xaggan waa sublies expense, kan waa asset ahaan wey. sublies expensiga October 31 adjustment baa lagu sameeyey 1500 buu ahaa. balancega wixii expenses ee baxay October 31 wuxuu ahaa balance 1500 weeye. marka 1500 baan soo qaadaynaa, waxaan geenaynaa qaybta creditka. subliesku wuxuu u badan jiray maadaama asset yahay debitka. qaybtana maadaama ay expenses tahay oo decrease lagu sameynayo, subliesku wuxuu decrease u noqon jiray creditka. marka 1500 waxaan geynaynaa qaybta creditka si aan uga jaro akoonkan sublieska. markii laga jaro marka waa inta loo socdo si uu akoonku uu update u noqdo qiimihiisa saxda ah ee hadda yaalana loo ogaado. marka 2500 markaan 1500 ka jaro waxaa soo hadhaya October 31 balancega soo hadhaya wuxuu noqonayaa 1000 buu noqonayaa. marka intaasi cashirkii hore u ahaa. haddana waxaan u galaynaa insurancega. xaggan haddaan ku noqono waa kan prepaid insurance ina leeyahay 600 bay ahayd, oo trial balance wuxuu sheegayaa 600 ee aan bixinay in aan weli waqtigii waxba inoo dhammaanin. insurancega hadday beri tagto waxay ka dhigan tahay bishaas markay tagto oo wax dhibaato aysan kusoo gaarin iyo wax dee caymiskii dib lagugu soo celiyo lacagtii expire bay noqonaysaa. adiga expenses bay markaa kugu noqonaysaa, maadaama oo shirkadu qaadanaysa markaa qiimihii bisha kusoo hagaagayay, wax damagena una soo gaarin hantidaadii ama waxaad insurancega ka bixisay. marka wuxuu leeyahay companies purchase insurance to protect themselves from losses due to fair. shirkaduhu waxay markaas iibsadaan buu leeyahay, waxaan la yidhahda insurancega ayay bixiyaan si ay u ilaaliyaan naftooda, ay uga ilaaliyaan khasaaraha iyo sidoo kale hadduu dab dhaco, sidoo kale haddii tuuga timaado wax laga xado si loo kabo, ama unforeseen events buu dhacdooyinka markaasi aan markaa la dareensanayn amaba sida kadiska ah u dhacaya ama aan la qiyaasi karaynin haddii uu qofka ku dhaco kale, si shirkadda insurancega qaadanaysa ay qofka aada la gelaysa insurancega ay kaaga bixiso. marka waxyaabaha noocaas oo kale ayaa insurancega loo bixiyaa. marka characteristics waxaa ka mid ah insurance must paid in advance. inta badanna waa more than 1 year buu leeyahay, laakiin uu ka yaraan karaa.
marka insurancega waxaa la sameeyaa si advanceya loosii bixiyaa, horumaris ahaana loosii bixiyaa. shirkadda waad u geyneysaa, horumaris baadna usii bixineysaa. kadibna haddii wax dee damage soo gaaro gaari baad tusaale ahaan ka bixineysaa. marka wax dee damage hadduu soo gaaro gaariga, marka shirkadda ku hagaajineysa, laakiin horta waa inaad horumaris usii bixisaa. The cost of insurance waa lacagta la bixinayo, oo premiumna waa la yidhaahdaa markaasi. paid in advance waa tan hore u sheegaya un. lacagta markaas insurancega ah ee advancega lagu sii bixiyey see loo diiwaan gashanaya is recorded as increased debit in the asset account prepaid insurance. wuxuu leeyahay markaas lacagtan aad sii bixinaysid maadaama sii qadintay, ma waxaad u isticmaalaysaa expense mise asset ahaan. marka wuxuuna yidhi waxaan u isticmaalaynaa debitka ayaan ka increase garaynaynaa. marka haddii saa la yidhaahdo waa asset accountina buu yidhi. marka prepaid insurance baan u bixinaynaa, oo macnaheedu waa maxay? waa insurance aan sii bixiyey weeye, marka aan sii qadimay ayuu noqonaya. marka waa hanti aad meel dhigatay oo kale. marka hanti aad meel dhigatay maadaama ay tahay bishiiba wixii ka decrease garooba, wixii isbedel ku yimaada baa marka aad ka jaraysa ood expense ahaan u aqoonsanaysaa. wax kale ku yaalana haddii tusaalahaan sanad aad gashay, dee sanadkii bil baad joogtay, wax dhibaatayii kuma soo gaadhin, iyo wax oo aad ku samayso gaari hadaad ka bixiso oo kale, gaariga wax dhibaataa ma soo gaadhin. marka bisha waxay ka dhigan tahay shirkaddu iyadaa qaadanaysa. haddii tusaalahaan sanad aad tidhi oo lacag 6,000 aad bixisay, 6,000 aad bixisay unbay 12 bilood u qaybin, kadibna halkii bil wixii kusoo hagaagayay shirkaddu iyadaa sii qaadanaysa, adigana expenses bay kugu noqonaysaa. At the financial statement date campaigns increase debit insurance expenses and decrease credit prepaid insurance for the cost of insurance that has expired. wuxuu markaa leeyahay marka financial statementiga waqtigeeda la gaaro shirkadda ay diyaarinayso waxay increase garaysaa waxaa la yidhaahdo insurance expense. sababtoo ah dee waxaa jira marka insurancega qayb expire noqonayso oo adiga kaa noqonayso oo shirkaddu qaadanayso. marka qaybta ay shirkaddu qaadanayso expenses bay adiga kugu noqonaysaa. sidoo kale waxaa la decrease garaynayaa account-keenii insurancega ee prepaid insurancega ahaa ayaa markan waxaa lagu sameynayaa decrease baa lagu sameynayaa. oo markii ugu horreysay ee insurancega aan qadimaynay qiimihii inoo joogay in laga yareeyo ayuu baahiyay. oo bil haddii kasoo wareegtay wax damage una soo gaadhin gaarigii aad ka bixisay oo kale, maadaama shirkaddu ay qaadanayso qayb ka mid ah 12 bilood markii loo qaybiyo waxaad bixisay bisha qaybteedii ay qaadanayso, qaybtaa waxaa loo baahan yahay adiguna inaad ka jarto prepaid insurancegii oo ahayd hantidii aad shirkada aad usii bixisay insurance ahaan ama caymis ahaanka aad usii bixisay in aad ka yarayso. marka kana decrease bay ku sameeyaan, xagga expenseskana increase ayuu noqdaa. tusaalan markaa ku bixinaynaa si aan u fahano. wuxuu yidhi October 1 Yaxya Company shirkadaasi waxay bixisay $600 ayay bixisay for 1 year. waa fire insurance policy. shirkaddu markaa waxay u bixisay insurance ahaan bay u bixisay $600. marka Yaxya Company records the payment of increasing debit prepaid insurance. This account shows a balance of 600. waxaa markaa uu leeyahay shirkadda Yaxya waxay sameynaysaa maadaama $600 ay insurance ahaan u bixisay, say wax u diiwaan gashanaysaa. taas horey baan usoo sheegnay, waxaan nidhi markaad sii bixiso insurancega expense ahaan markaa uma aqoonsanaysid, waxaad u aqoonsanaysaa waxa la yidhaahdo prepaid insurance. iyada accountkaas ayaad furaysaa. marka accountkaas ayaad ku diiwaan gelinaysaa oo asset ahaan ah, hadhowna la yaraynayo oo bil walba wixii expire noqdaa laga jaraya. marka accountkani wuxuuna tusinayaa balance ahaa in uu ku jiro $600 inay ku jirto ama 600 bir. wuxuu yidhi markaa in October 1 hadda tan October 1 bay ahayd. marka October 31 trail balancega markaasi aan haysano wuxuu ina tusinayaa inuu 600 yahay buuri. marka oo markaan adjust aan lagu sameynin accountadii ama update aan weli lagu sameyn. marka maadaama update uu u baahan yahay waxa oo bil ay kasoo wareegtay wixiina uu sanad ahaa, bishaasi qaybtii la rabay in la bixiyo oo expire ka noqotay baa la rabaa in laga jaro. so marka wuxuu ku yiri insurance of
shirkaddu markan waxay bixinaysaa bishan October maadaama ay dhamaaday insurance-ga ay bixinayso waa 50 weeye markaasi. Insurance-ga ay markaa shirkaddu bixinaysaay waa 50 bir. marka 50kii bir ayaa waxaa laga jarayaa lacagtii ahayd 600 maadaama ay sanadna ahayd. marka waxaa la sameynayaa si aan u ogaano halkii bil maxaa insurance-ga expire naga noqonayay. waxaan sameynaynaa 600 ayaan u qaybinaynaa 12 bilood ayaan u qaybinaynaa. markaan u qaybino 50 buu noqonayaa. marka 50gana waxaa loo baahan yahay in laga jaro prepaid insurance-ga oo 600 joogay. markay bil kasoo wareegto bisha 50 riyaal waxaa qaadanaysa shirkadda ama $50 shirkadda ayaa qaadanaysa maadaama oo shirkadda caymiska la gashay, maadaama wax damage amaba gaarigay wax dhibaatay aysan soo gaarin. 50kaas expire buu noqonaya. bil walbana 50 baa expire noqonaya. bil walbana 50kii haddii uu expire noqdo waa in expenseska aad ku darsataa, kadibna account-kan aad ku sameysaa wixii la odhanayay waa inaad ku sameysaa account-kaas adjustment inaad ku sameysaa. marka si aan adjustment u sameyno wuxuu yidhi the expression of prepaid insurance decreases an asset. wuxuu leeyahay markaasi markuu expire ay ku dhacdo prepaid insurance-ga qayb ka mid tusaale ahaan 50kaasi ay expire noqoto waxay decrease garaysaa assetkii ahaa prepaid insurance-ga. assetkaas oo 600 ay ku jirtay ayaa laga jaraa marka 50ka. sidoo kale waxay decrease garaysaa buu yidhi the owner's equity ayay iyadana ay ku sameysaa decrease by increasing an expense account. waayo expense account bay markaas yaa increase garoobay maadaama expense account increase garoobo oo ama uu badanayo expenseskuna wuxuu hoos tagaa waxa la yiraahdo owner's equity-ga oo marka la diyaarinayo waa kii owner's capital la qoray. owner's equity waxa hoos imanaya capitalkii, sidoo kale revenue-gii, expenseski. marka expensesku hadduu bato waxaa laga jaraa owner's equity-ga ama revenue-ga owner's equity-ga hoos yimaada. marka isagana decrease buu ku sameynaya. wuxuu markan yidhi an expenses insurance expenses haddii marka lagu yidhaahdo 50kaas hadda expire-ka noqday waxaad u sameysaa entry u samee. waxaad diiwaangelinaysaa marka insurance expenses waa 50. waxay ka dhiganta marka expenseski baa increase garoobay. expenseska waad garanaysaa debit buu ka increase garoobayay. so marka maxaa decrease noqonaya 50ka xagee laga jaraya? waxaa laga jarayaa account-kii 600 ay ku jirtay oo ahaa prepaid insurance. tii account haddaan ku muujino insurance expenseski waa kan waa October 31deedii bishii ugu horeysay. marka October 31deedii waxaa inaga expire garoobay 50. marka 50kii baan diiwaangelinaynaa. adjustment-ga ka tegi maysid waxay calaamad u tahay in waxaan adjustment yahay. sidoo kale October 31deedii balance-ga adjustment-ga aan ku sameynaynaa kaliya waa 50ka hoosan baa loo soo dejiyay balance ahaan. prepaid insurance oo ah account-kan decrease garoobaya. account-kan waxaan ku sameynaynaa marka account-kan waxaan ku sameynaynaa October waxaan leenahay waxay ahayd 600 ayay ahayd October 1deedii 600 ayay joogtay. marka 600 waxaa laga jarayaa xaggan credit-ka maan diiwaangelinin, laakiin xaggan credit-ka ayaa ku diiwaangelinaysaa intan oo sideeda ayaad soo qaadaysaa. October oo 31deedii adjustment 50 baad soo qaadaysaa, halkan aad dhigaysaa. markaad dhigto waxaad sameynaysaa 50kan ayaad ka jaraysaa 600. markaad ka jarto waxaa soo haray 550. 550 balance si loo muujiyo maadaama prepaid insurance-ga hadda lagu sameeyay decrease. waxaad sameynaysaa October 31deedii baad odhanaysaa balance-gu wuxuu hadda joogaa waa 550 weeye. insurance-ga hadda inoo yaalay ee asset ahaan inoogu yaalay ee shirkaddu noo haysay waa 550 weeye. marka waxaa laga jaray 50kii. marka prepaid insurance-ga isagoo sidaas ah ayaan geyn doonaa haddii la yiraahdo income statement-ga. marka sax ayuu noqon doonaa maadaama update lagu sameeyay oo 50kii meesha laga tuuray. 50kan meesha haddii iskaga jiri lahaa hadhow dhibaatooyin baa ka iman lahayd. waana arkaynaa waxa sababta loo update garaynayo.
shirkadani marka wuxuu yidhi haddii shirkadani don't make ayna sameynin marka this adjustmentigana oo kontonkan in laga jaro maadaama kontonkan expire noqotay halkii bil 600 laga jaro oo 550 balansiga la ogaaday inuu noo marayo haddaan la sameynin maxaa dhacaya waxaa dhacaya October expenses bisha October expenseskan galay oo uu kamid ahaa kontonkaas maadaama uu expense ahaan u aqoonsanayno shirkadu maadaama ay qaadanayso inagana expire ay naga noqonayso are understated buu markaasi ayuu noqonaya oo expenseskan waxaa la rabay inuu increase garoobo bato maadaama kontonkaasi uu soo biiray haddaan iska dayna marka wuxuu noqonayaa understated oo expensekii baa yaraanaya by 50 marka $50 ama $50 ayuu yaraanaya marka in la beeriyo weeye marka adjustment lagu sameeyo oo haddaan lagu sameynin dhibka ka imanaya weeye expenses la inaga jari lahaaba markaas yaa meesha ka baxaya oo aan laga jarin marka understate buu noqonaya expenseska hoos buu dhacaya inuu laakiin hadda uu badan yahay sidoo kale net income-ka haddii expensesku yaraado waxay ka dhigan tahay net income-ka wuxuu noqdaa overstated isagana wuu bataa waayo expenseskan yaraaday hadduu badan lahaa expenses waxaa laga jari lahaa net income-ka oo net income-ka haddii expenseska laga jarana marka wuu decrease garooba laakiin hadda maadaama laga jarin isaguna overstated buu noqonaya overstated macnaheeduna net income-ka badanaya weeye maadaama 50ga aynaan ka jarin dee net income-ka wuu badanaya laakiin haddaan kontonka ka jarro waxay ka dhigan tahay net income-ku uu yaraanaya understated buu noqon lahaa marka isagana konton ayuu noqonayaa increase oo konton dheeri ayaa saaran oo khalad ah oo expenseska ay ahayd in laga jaro wuxuu markaa moreover waxaa intaas dheer both assets and owners equity assetka iyo owners equity iyaguna waxay noqonayaan overstated bay noqonayaan oo sidee ayay overstated u noqonayaan assetka oo ah prepaid insurance-ga oo asset aan inoogu yaalay waxaa iska oolayay 600 waana khalad oo waxay ahayd in kontonka laga jaro marka maadaama adjustment la sameeyay 600 haddii aan ku dayno waxay noqonaysaa marka overstate bay noqonaysaa macnaha balancigi caadiga ahaa ee meesha yaalay waxba dheer ayay ka dhigan tahay owners equity-guna overstate buu noqonayaa soo u noqonayaa wuxuu noqonayaa expenseskan maadaama 50ga aan la soo saarin haddii la soo saari lahaa isaga laga jari lahaa owners equity-ga laga jari lahaa isaga maadaama laga jari lahaa dee haddii laga jaro increase buu noqon lahaa wuxuu noqon lahaa understate buu noqon lahaa laakiin hadda maadaama laga jaraynin oo adjustmentii aan la sameynin isaguna overstated buu noqonayaa konton dheeri ah ayaa la socota oo aan laga jarin marka kontonkaas ayuu dheeri noqon lahaa October 31 balance sheet-ka marka khaladaadkaas ka dhacaya sidoo kale income statement-tigana iyagana khaladaadkaas ka dhacay waa dhanka net income-ka iyo maxaan ku dhahaa expenseska balance sheet-kan isagana khaladku sidaas u dhacaya oo labadoodaba overstated bay noqonayaan marka assetka iyo owners equity-ga la eegayaba marka insurance-ga isaga sidaas loo update gareeyaa marka hadda 550kan sidaa ay tahay baan usii qaadaynaa waxay tagaysaa marka balance sheet-ka ayay tani tagaysaa balance sheet-ka marka adjustment-ga la sameynayo account adjustment-ga lagu sameynayo labadiisa qaybood ee debit-ka iyo credit-ka midna balance sheet-ku tagaa midna wuxuu tagaa income statement-ga marka prepaid insurance asaga waad garanaysaa waa asset account asset weeye marka oo mar walba update lagu sameynayo marka wixii soo haro hadda 550 kana balance sheet-kan geyn doonaa iyadoo kontonkii sidaas kaga jarantahay kontonkan expenseska ana income statement-ga ayuu tagi doonaa haddii la yiraahdo qaybta expenseska lagu dari doonaa kadibna sidaas looga shaqeyn doonaa cashirka xigayna waa depreciation-kana isagana waa kan asaguna marka depreciation-ku waa equipment-ga isaga 5,000 buu jooga waxay ka dhigan tahay tusaale ahaan waa gaari oo kale ka soo qaad marka gaarigu markaad soo iibsato 5,000 buu jooga $5,000 baa laga siiyay de $5,000 marka gaarigii lagu shaqeynayo la wado qiimo dhac baa ku imanaya maalinka u horeeya ee gaarigaas shaqeeyo laga bilaabo bil hadduu shaqeeyo gaarigii marka hadda dib iibis tiraahdi dee $5,000 lagama siinay qiimo dhac baa ku imanaya marka sidee loo update gareynayaa kaas ayuu ka hadli doonaa
kaasna waxaan uga hadli doonaa hadduu ilaahay yidhahdo cashirkeena 7 oo depreciation ka noqon doona. cashirkana cashirka xigeentaan ku kulmayno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.